السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونidin salaamay khiyaarta dhammaantiin saad u dhantihiin meel kastood kala joogtaan dunida daafeed halkaad igala socotaan waa janalka ladan cabdow fadlan dhegeysta waad aad igu cusub tahay janalkeena subscribe gareega balka noonka dhiga si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo soo sheer gareyna biidinillah haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan fadlan like share comment waa muhiim ha iga ilaawin soo dhawow walaalkay ama walaashay waxaan rabaa inaan idinla wadaaga maanta qiso run ahaantii cabsideeda wadato oona yacni in lagu digada caruurta ay aad u xun tahay qisadeena aan gudagalno sidee tan ayayna ku bilaabanaysaa haddii aad dhegeysatay qisadan ama ay kusoo gaartay ha ka baqiilin walaalaha kale la sheer gareey waana kaaga mahad celinayaa codsigayga aad tixgelisay dhiirigelintaada commentiga iigu rab insha allah kusoo dhawaada markale qisadeena haddaad caafimaad qabta caafimaadkaaga allah kuu zaa-idiyo haddii aad bogtana allah ku caafiyo kan awlaada haysanin allah awlaad siiyo oo baari ah kii haystana ilaahay ha u barakeeyo oo haga yeelo walad saalix waalidiintana inta dhimata allah u naxariisto inta nool ilaahay ha u dambi dhaafo ayagana naxariisto u baahan ilaahay u naxariisto soo dhawaada inta dhammaantiis aad u dhantihiin qisadan sida tan ayay ku bilaabanaysaa gabadhan waxa ay leedahay aniga waxaan ahaa gabar dhigata iskuul yacni waxay joogtaa qisadan waxay ka dhacday Masar waxay tidhaahday waxaan deganahay dhahday Masar tuulo yacni meel tuulo ahaan ayaan deganay dhahday tuulada aan joogo waxay tidhaahday waxaan dhigtaa iskuul ayaa dhigtaa ayay tidhaahday iskuulka aan dhigto waxay tidhaahday waan dadaali jiray oo waxaan ahaa gabar aad u dadaal badan waayo waxaan u dadaali jiray si aan hadhow markii jaamacad la gaaro scholarship aan u helo waxay tidhaahday waalidiinteeda aad ayay u danyaraayeen oo wax dhaqaale ma haysanin waayo cid faqiir ayaan ka dhalanay ayay tidhaahday aabahay beeraha ayuu iska aadaa wixii beerahaas laga keena ayaan ku nool nahay alxamdulilah waxay tidhaahday iskuulkii waan dhameeyey ilaa iyo maxaan lahayay meeshii ugu fiicneed imtixaan ayaan galay imtixaankii waxaan rabay inaan meel sare ku gaaro oo Masar jaamacadeeda ugu weyn mid ka mid aan galo laakiin way ii noqon weysay markas yacni midkii aan rabay mid ka hooseeya ayaan keenay laakiin sidaas ay tahay weli maa niyad jaban oo macallimiintii markii aan weydiiyey waxay igu dhaheen inta iskuulka ma helaysid oo yacni waxaad ka raadsataa aniga waxaan jeclaa ilaa scholarship inaan helo aan tago yacni waxay igu dhaheen maadaama inta aadan waxbarashadaada aysan heerkaas dhan gaarsiisaneyn waxaad tagtaa qaahiro ayaad ka helaysaa waxbarashadaada qiimaheeda iskuul u dhigma waxay tidhaahday aniga niyadda ayaa kastoo ii dhisantay waayo waalidiinteeda ayaan rabaa inaan horumar aan gaarsiiyo oo aan ka saaro yacni faqiirnimada iyo nolosha adag ay ku jiraan waxaan wax u baranaya dhan waxaa waaye inaan horumar gaarsiiyo waalidiinteeda waxay tidhaahday meesha qaahiro aabahay ayaan u tagay anigoo faraxsan oo rajadii iga baaba'day ayaa dib iigu soo noolaatay waan cararay aabahay ayaan u tagay waxaan ku dhahay aabbo maakiskii aan keenay mid u dhigma ama waxbarasho u dhigmata ayaa la iigu sheegay qaahiro meeshaas ayaan aabbo scholarship ka helayaa meeshaas ayaan aadayaa aabahay intuu igu qoslay ayuu dhahay ha ku daalin in aad marbo hataa aad ku fikirto inaad baxdo oo aado qaahira waayo waxaa tahay gabar keligaana kuma diri kari markaas ayaan waxay dhahay waan walwalay waan murugooday waxaan wacay adeerkay oo qaahiro deganaa ayaan wacay waxaan ku dhahay adeer waxaan rabaa inaan soo aado qaahiro aabahayna waa diidan yahay ee igala hadal aabihii adeerkaygii wuxuu dhahay aniga ayaa aabahaaga la hadlayo iyo aniga iga warsug adeerkay waxa uu soo wacay aabahay wuxuu ku dhahay gabadha ii soo dir aniga ayaa u baahan aniga ayay ila joogaysaa meesha ayayna iskuulka ka dhiganaysaa ay u baahan tahay ee ha u diidin adeerkay aabahay wuxuu dhahay ha ku daalin uu dhahay inaan gabadhan soo diro waayo adiga wiilal waaweyn ayaa kuu joogo anigana gabadheeda waa qaangaar macquulna ma ahan inay kula degto oo meesha iskuulka ay ka aado adeerkay wuxuu dhahay maadaama saas aad tidhaahday gabadhaada iyo gabadheeda ayaan isla dejinayaa meel agteyda ayaan guri aga kareynayaa iskuulkeeda aniga ayaa ku ogaanayo adeerkay waxay tidhahday si kasta uu yeelay aabahay wuu ku qanciyey markii dambe waana la idiray tidhaahday waxa ay soo dhaweystay ayay tidhaahday adeerkay iyo gabar walaashay adeerkay ugu dhalay waa la isoo dhaweeyey isla markiiba gurigiisa markaa tagay waxay tidhaahday aniga
iyo walaashay oo adeerkay dhalay iyo aniga iyo adeerkay waan isa soo raacnay. Gurigii wuu ii kiriyay ayuu isoo tusay. Wuxuu igu dhahay adeer guriga waa kana ha kula hagaajiso walaashaada inta ayaad degaysaa ogow. Waxay tiraahday aniga alxamdulilah igama waqasnayn waan faraxsanaa ayay tiraahday. Waxaan arkay gabar daaqada dariskayga gabar yar ayaa ooynayso oo cabaadayso. Waxay ku cabaadaysaa oo ay leedahay hooyo ha idilin, hooyo ha idilin, hooyo ha idilin. Aniga waxay tiraahday aniga aad ayaa qalbiga ii xanuunay, kamana celin karo. Gurigii waan ku cusbahay oo haddii aan ka celiyo waxay tiraahday waxaan ka baqay adeerkay inaan balaayo wax u soo jiido. Marka waxay dhahday waan iska daayay guriga ayaan hagaajiyay. Wax yar ka bacdi gabadhii way aamustay. Maalin labaadii markii guriga aan soo degay isla sidii gabadhii anigoo jaamacadeydii aaday oo kasoo rawaxay waxaan maqlayaa gabadhii oo ooynayso oo dhehayso hooyo ha iyeelin, wallaahi dambe uma laabanayo. Gabadhii say tahay loo garaacay, gabadhiina ay cabaadayso. Waxay tiraahday maalin labaadii waxaan isku day haddana inaan ka celiyo, laakiin weli waxay dhahday waa cabsanayaa oo guriga waan ku cusbahay, waxaana ka baqa adeerkay inuu foodo iyo wax dhibka aan usoo jiido oo problem aan ku furo. Waxay dhahday maalin saddexaadii aniga oo ka imaaday jaamacadii ayaan waxaan arkay gabadhii oo ooynaysa sidii loo garaacayay oo isla sidii haddana hooyo hooyo ku hayso oo musqusha lagu soo xiray. Musqusha ayaa lagu soo xiray siday u ooynayso. Markii dambe way aamustay gabadhii, way aamustay. Aniga waxaas dhe waa la daayay, waan iska daayay, waan iska aamusay oo weli maanan aadin. Gabadhii way aamustay. Waxaa niyadda ii gashay in la daayay, garaaca laga daayay, gabadhii ay iska aamustay. Waxay dhahday waan gurigayga ayaan iska imaaday ayay tiraahday. Waan iska qada karsaday, gurigayga ayaan iska joogay. Guriga adeerkaygana waa ii dhow yahay, walaasheedana waa ii imaataa. Marka waxay tiraahday anigoo soo rawaxay oo xilliga qadada oo guriga usoo socdo ayaan waxaan arkay gabadhii yareed oo iridda horteeda fadhida. Markii aan meesha marayay anigu waan farxay dhahday, gabadhii inaan la hadla ayaan rabay. Intay igu soo booday ayaan hab ay siisay, hab ayaan siyo laabta ayaan geliyay. Waxay dhahday madaxa ayaan ka salaaxay, madaxeeda waxaan arkay inay mase xiiran tahay oo madaxii laga xiiray. Waxaan ku dhahay timaha ayaa kaa xiiray. Markaasay tiraahday hooyaday ayaa iga xiirtay. Gabadhii guriga ayaan soo geliyay, cunto ayaan siiyey, meesha ayay cabaar ila joogtay. Gabadhii naxariis ayay iga dareentay oo hoosteeda ayay soo gashay. Waan wada sheekaysanay. Sheekadeeda waxaan ka fahmay gabadha qofta ay la joogto inay eedadeeda tahay oo hooyadeed ay dhimatay iyadoo yar, aabaheed ay la nooshahay, eedadana aabaha ayaa qabo. Way gumaadaa oo way xasidaa, doqonnimo ayayna ula dhaqantaa. Waxay igu dhahday gabadhii yareed waxay tiraahday markay waxeeda cuntay oo meesha ay nafistay kadib way iga tagtay. Haddana isla sidii maalintii labaad guriga hortiisa ayay ii fadhiisatay. Waan soo waday, guriga ayaan soo geliyay, cunto ayaan siiyey, way ila joogtay, meesha ayay seexatay. Gabadhii ilaa habeenkii aniga ay ila joogtay, wax soo raadinaya maba lahanbo. Habeenkii waan iska bariisiiyey. Subaxii markaan baxay ayaan waxaan ku dhahay orod xaafadda aad, eedada hooyada way ku walwalay haddii kale. Waxay igu dhahdaa ha idilin, waan ku baryayaa, ha idilin, waan ku baryaa, adiga ayaan kula joogaa, gurigaaga wallaahi ma haleynaay, alaabtaada kuma dheelaayo, intaa iska seexanaa. Waxaan ku dhahay haye, laakiin hadhow markii cabaar aad joogto gurigeena aadso, haddii kale waa lagu garaacaa ayaan ku dhahay. Aniga usha ayaan u diidanahay. Haye ay igu tiraahday ballan waay. Anigii waan baxay, jaamacadeeda ayaan iska aaday, waan soo laabtay. Markaan soo laabtay gabadhii yareed maysan bixinbo. Intaanaad waxay dhahday aanan gurigay kusoo laabanin, waxaan aaday gurigii gabadhii. Waxaan ku dhahay anigoo inaan soo degay meesha way ii jeedaa naagta oo daris aan la ahay. Waxaan ku dhahay gabadhaada yareed aaway. Waxay igu dhahday gabadheeda way jiiftaa. Haye ayaan ku dhahay. Aniga waan farxay maadaama ay hurdo, ballantii waxaan dareemay inay ii oofisay. Gurigayga ayaan imaaday. Gurigayga markaan imaaday waaba gabadhii oo gurigayga ku jirto. Waan naxay ayay dhahday. Markaasaan ku dhahay aniga soo bax kuma dhihin, hadda soo liguma dhihin, guriga ayay jiiftaa, goormaad soo laabatay. Markaasay dhahday aniga guriga waan tagay, barkimo ayaan usoo saaray, bustaan kusoo daboolay, inaan jiifo ayaa la ii maleeyaa. Calaa kulli xaal gabadhii waxay dhahday haye iska seexo. Guriga ayay seexatay. Habeenkii waxay dhahday markii la gaaray ayaa waxaan arkay wax neef culays ayaan dareemay, wax korkayga saas
ugu soo dugay oo kaleeto. Waan naxay waan soo kacay waaba gabadhii waan cabsaday maxaa kugu dhacay ayaan ku dhahay qaylideydii. Haddaan halkaas fiiriyo sariirta kale waxaa jiifto gabadhii yareed. Qofkan korkayga taaganna waa isla gabadhii. Markaas waxaan ku dhahay qayladii aan qayliyay ayay gabadhii ku soo kacday. Gabadhii ayaa ku soo kacday markaas waxaan ku dhahay yaa waay gabadhan adigana yaa waay. Waxay dhahday gabadhan waa saaxiibadeyda oo waagii aan musqusha ligu xiray maalintii ayay isoo raacday. Oo musqusha ayay iga soo raacday waxayna ballan ii qaaday qof kastoo i dhibo inay dhibaateynayso qofkii soo dhaweystana ee yacni iyadana jeclaanayso. Haddana waxay dhahday waxaan ballan aga qaadnay waxay dhahday waxaa hadlaysa gabadhii kale oo jinka ahayd. Waxay tiri waxaan ballan aga qaaday inaan dili doono eedada gabadha sidaan u gashay oo musqusha ku soo xirtay. Waxay tiraahday aniga waan naxay waan qalqalay waan soo cararay ayay dhahday. Gabadhii intaana jaraanjarada kasoo degin oo gurigayga kasoo baxay laakiin banaanka aana soo gaarin gurigii kale waxaan arkay dab ka kacay. Haddii la iskugu imaaday waaba eedadii oo dabkii ku gubatay oo dhimatay. Aabihi ayaa loo wacay ambalaasi ayaa imaadeen wixii waa la dabdamiyey. Aabihi ayaan arrintii aga sheekiyey. Aabihi waa ii mahad celiyey gabadhiisi ayuu soo dhaweystay gabadhii ayuu hoosta gashay. Arrintan waa arrin run ah oo ka dhacday wadankaas yacni dalka Qaahira. Arrintan waa arrin run ah waayo aad ayay u ciqaabtay gabadha yar eedada si xun ayay ula dhaqantay jirdil ayay ku sameyn jirtay cadaadis fara badan ayay saartay markii dambena Ilaahay aga hiiliyey. Insha Allah qisadayni waxaan jeclahay inaad ka hesheen qisadan iyo qisooyin kale oo lamid ah waan soo gudbin doonaa adigana igu caawi inaad like share comment iyo siiso oo la wadaagto asxaabtaada si aan u helo friends badan sida adiga oo kaleeta ah. Waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu ku cajab geliyey. Fikirkaaga waa ii muhiim commentiga like share insha Allah. Waxaan idinka tegayaa kulan dambe oo lamid ah ama kulan kale oo ka xiiso badan. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar kale. waxaan idinka sii tagayaa kulan dambe oo xiiso leh. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.